macalinka iskuulka ama macalinka jaamacadda ardayga waxa uu baraa in ardaygani uu noqdo mid isaga kaligiisa isku filnaado oosan cidna u baahanayn. sidoo kale waxaa la siiyaa hubkii uu ku dagaalami lahaa, xirfadii uu ku shaqaynsan lahaa. sidoo kale waxaa loo sheegaa talooyin ku habboon haddii xaalad walba soo wajahdo sidii uu kaga gudbi lahaa. runtaa waxay tahay waxaad arkaysaa dadyo fara badan maanta oo suuqani forex ku jira, muddo fara badan ku jira, welina gacanta la hayo, doonayana inay kaliya sugaan in macalgad afka lagu geliyo. inta aad qof kala hadlaadid ama qof ha kuu soo galo live ama signal ha ku siiyo ama zoom ha kuu soo galo, any case wixii doona ha ahaato, waxaa tahay qof weli gacanta laga haya. hase yeeshee bahda Birlab FX asxaabta waxay inta badan u sheegaan qofka inuu xor noqdo, waxayna tusaan ifafaala qofkaasi ahmiyadiisa iyo hadafyada uu doonayo inuu kamera dhaliyo way ifinaya ayuu tilmaamaan. qofka waad curyaaminaydaa haddii aad maanto idil aad gacantaada ku haysid keliyana aad u sheegaysid halkani 1+1 keliya aad maanto idil aad ugu haysid, qofkaasi kama koraayo agtaada oo wax ma qabsanayo. laakiin qofka haddaa ku tiraadid halkan ayaa laga galaa, badda meel walbo laga galo waa dhanaan, waxaad ogaataa A E B E C dan qaado rulkani, kadibna u sheeg talooyin ku habboon oo qofka wax ku fahmi karo. laakiin haddii maanto idil aad dul joogtid, maanto idil aad tiraadid sidaan sameey sidaan sameey, waxa uu soo siyaadin doono. isku day suuqani waxaa loo soo wada galay waxay tahay inaad xor ahaatid, in lacagtaadii adiga aad gacantaada ku trade gareysid, inaad cidna aadan u baahnaan, inaad qof kale aad wax weydiisan. laakiin haddii maanto idil aad qof suga tahay, waxaad ogaataa in weligaaga Allahaaga aadan ka koreynin caqabadaha ku haysta. waxaa anaga naga go'an bahda Birlab FX waxay tahay qof walba bahda ku soo biiraya in shakhsi ahaantiisa uu wax u qabsan doono leedinkii, aysan dhici doonin in cid afka qaandada lagu gelgeliyo, kaliya la tusiyo halkuu wax ku ifsan lahaa, hubku uu ku dagaalgali lahaa. dabcan hadalka ugu horeeyaan soo qadan oo ah macalinka ardaygiisa markuu wax baraayo waxa uu baraa waxay tahay in ardaygani uu xaalad walba ku soo wajaha inuu xalliyo. laakiin haddii uu ardayga noqdo ka waran maada hebel, maadadaasi macalinka ay dhigi jiray suuqa xaaladana ay soo wajahday, macalinka dib ugu laabanaya, taa macquul maahan. wax wanaagsan waxay tahay inaad adiga aad baratid suuqani, cid maanta cid kale wax dheer ma jirto, kaliya waa loo soo kala horeeyay. isku day markaa inaad shakhsi ahaantaada aad wax baratid, wax qabsatid, cidna aadan ku tiirsanaanin. waxyaalaha dib noo dhiga waxay tahay inteena badan haddaanu nahay Soomaali waxay tahay aniga hoggaankeena meel kale suranaa. waxaad arkaysaa dadyo fara badan oo wada shaqeeya ama hawlo kala haysta, kaliya akoon lacag ku shubanaya dhahaya signal nahayda noo soo dir, waxaan rabaa inaan galo trade-kaasi qaato asoona fiirin. meeshani waa ganacsi, waxaad ku baabi'inaysaa waxay tahay waa lacagtaada, waxaad meesha kaga toqolisaysaa waxay tahay waa lacagtaada ogow meesha ay ku dhacayso, ogow meesha ay ka baxayso. laakiin haddaad kaliya aad sugtid in qof uu wax kuu sheego, waxaad ogaataa inaad noqon doontid mid loser ah. inta badan bahda Birlab FX waxay asxaabta kaga digtaa waxay tahay team in badan ay qof trade la qaato. trade inaad qof la qaadatid kuma wanaagsan, mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad trade inaad qof la qaadatid ma ku wanaagsana. waayo trade qof waad la wadaagi kartaa fikir ahaan oo halkaasi ayaa wax ila tahay qof waad la share garan kartaa, laakiin internet trade la qaadatid kuma wanaagsana. waxyaalaha taas aan leenahay waxay tahay adiga meelaad wax ka arkaysaa trade soo aad gareysay soo taxliilisay, sida adiga trade-ka buy aad ugu fikraysid, shakhsi kale kula joog ama group kale kula joog waxay ku fikiri karaan inuu trade-ka sal yahay. kadib waxay imaanaysaa tashwiish, trade-kii ku saxan ayaa inta badan isleedahay talo xitaa hadaad qaadatay xataa ama TB-ha ku aad ama ku hareer marba adiga oo been ayaad qaadanaysaa. laakiin markii adiga rulka aad taqaanid oo cidna aadan waxba ugu baahnayn, trade-ku aad taxliilinaysaa, kadibna si aad ku qaadanaysaa, qof wax kale kama sugaysid. sidoo kale bahda Birlab FX waxay asxaabta gaarka ah inta badan u sheegaan in qofka asiga uu isku tashto oo cidna uusan waxba ka suginba. sharciyada bahda Birlab FX ay ka mid tahay suuqana forex inta badan Soomaalida waxa uu soo gaaray sanadihii dambe, balse waxaad arkaysaa qof
dhahayaa suuqana waxaa ku guda jiraa 2018kii soo galay ilaa 19kii 20 21 ilaa at least aan ku jiraa welina haamankiisa iyo hogaankiisa wuxuu dul saaran yahay ruux kale taamarka gudub adiga isku tasho oo adiga qof wax qabsada noqo hadii lagu siiyo agabkii aad wax ku qabsan lahayd talooyinkii fikirkii iyo aqoontiba maxaa dadka ugu baahan tahay maanta in ruux wax ku siiyo waxa kaga fiican in ruux uu ku sheego waxaad wax ku qabsan lahayd waxaa jirta oraah yar oo inta badan soo qaato waxaa la yiraahdaa ruux maanta hadduu ku siiyo hal xaba kalluun ama hal xaba malaay ah wuxuu ku siiyay qadada maanta balse qaabka loo jilaabta ama loo dabto ruuxii ku bara wuxuu ku siiyay qadada wiliga lahaa marka isku day inaad cilmiga aad baratid inaadan ku tiirsanaanin xirfadaadii adiga aad qabsatid qofna aadan dhihin aniga intaasaan kaa sugayaa aniga waxaan rabaa inaad kaliya aad dul taagnaatid ama qof aad ku dhagnaatid waxa kaaga wanaagsan inaad xor ahaatid suuqan xornimo u soo gashay xor ahaw waqtiga doonta ku qaadato 3 bil 6 bil sanad ilaahu ma 5 sano ku qaadato inaad adiga isku filnaasho gaar suuqani waxa kaaga filanba inaad hal xil xitaa aad trade gareysid inta badan bahda Berlab FX waxay trade gareeyaan New York balse London waa trade gareeyaan laakiin inta badan New York ay trade gareeyaan waxaan asxaabta aan ugu la talinaa New York inay trade gareeyaan balse waxaad ogaataa haddii sharciyadaasi New York intiri kaliya aad fahantid suuqani waxba ma kaga baahnid oo rulkaaga soo qaadanaysaa oo intii New York rulkii degsanaa ayaad soo qaadanaysaa trade-kaad ka heshiinad waa qaadanaysaa trade-kaad ka weysana waad ka tagaysaa qasamaha trade-ka doo sharciyada xataa ku siiyo maybe uu ku hareer mari karaa oo maanta inaad tiraad trade-kan rulkii oo idil wada waafaqay muxuu asal iga dhacay maahan trade asoo rulkii oo idil wada buuxiyay ayuu asal ku dhici karaa waana part of the game qofku waa inuu mar walba ku tashtaa trade-ku qaadanayo halka uu aadayo ka hor intoosan qaadan ka hor waa inuu ka fikiraa riskiga maxaa kaga go'i kara waa inuu qiimeeyaa waa inuu qoraa waa inuu ogyahay akoonkiisa maanta hadduu trade-kani dhanka kale ta aado oo hareer maro oo lose ama asal ku dhaco meeqa ka go'i karta hadduu TB aadana meeqa heli karaa intaasi markaad isku dhufsatid kadib wixii ku soo baxo xisaabso hadduu asal aadana horaba uu ogid wax walwal ma ku xirno hadduu TB aadana waa inta la rabay aad baad mahadsantihiin bahda Berlab FX meel baa joogteen guuleysta isku tashta wax qabsada innaha ku tiirsanaanina inna waxba ka sugina guuleysta